Muna Cabdi Faarax oo ah gabar 17 sano jir ah isla markaasina wax ka barato xarunta waxbarashada ee Muscab ee magaalada Nairobi ayaa ku guuleysatay kaalinta koobaad ee tartanka Quraanka Kariimka ah oo lagu qabtay magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka. Gabadhan oo dhigato fasalka labaad ee dugsiga sare ama Form 2 ayaa kaalinta koobaad u gashay tartanka loo galay 30 juz ee Quraanka Kariimka halkaasi oo culimo waaweyn ay ardayda imtixaanka qaadayeen. Munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu guddoonsiiyay abaalmarin waxaana markaasi soo qaban qaabiyay xafladan iyada ah iyo sidoo kale tartankanba xarunta dhexe ee sayniska ee Tibian. Gabadhan oo si weyn loogu hambaliyay isla markaasina hadalhaynteeda baraha bulshada ay markaasi qabsatay ayaa lagu wadaa in dib ay ugu soo laabato dalkani Kenya maalinimada